abaar habeennimadii xalay toole sagaalkii xilli saacadu ay ku sii siqaysay ilmo yar ayaa kaabadan oo halkan imika aan taaganahay ayaa la soo dhigay ciidanka degmada Maxamuud Haybe ee booliska ayaa goobta soo gaaray waxaana ilmihii si ku meel gaar ah loogu dhiibay ayaan oo kamid ah dadka deegaanka waxaan ku helay guriga ka baxay oo shirwa dagaal weeyaan ku carruur baan ugu tagay ilmaha loo ilma la dhigay way marka goobta ayaa soo gaaray goobta amar macallin baa taliyana la hadashay tiri ilmeer baa bartan la dhigay markii dambe taliyo qaadanay buu waxa inanta damiin ma ka tabay ku tiri waxa tir haa ana ka damiina inanta sidii baa inanta aniga leegu sii markaasi ku meel gaar ah haysaa wali dawladdu ma kuma sharciyeen si leema sharciyeen ku meel gaar baan hayaa magacu hadiyaan u bixiyay hadiyad u bixisay ma yimka dhakhtarkan geeyay wax caafimaad talaalun baa la soo siiyay haye marka xilli celiyo markay bilya 10 cisho ka maqnaatay uu nagu soo celi marka ma ku rajo weyntii ilmaha aad korsato oo gacanta aad ku hayso walow si sharciya hadda dawladdu aanay kugu wareejin oo si ku meel gaar ah gacanta aad ugu hayso inaan haystan doonaya markii ilmaha bartan la dhigay ugu horeyn waxa markiiba aragtay oo aqalka loo hordhigay ku jirtay Xaliimo waxaana si kooban uga warantay waxyaabihii indhaheeda ay ku argaysay maadaama oo ay ahayd shakhsigii ugu horeeyay ee indhaheedu ay qabtaan ilmahan oo hor yaala kaabada gurigeeda halkaas baan ku aragnay inan baa furtay albaabka markay furtayna halkaas bay ugu timi isagoo ilmuhu halka yaalo madaxiisuna xagga u jeedo iyo lugiisuna xagga u jeedo kaabada midun ka sarreysa ay ahayd halkaas buu ilmuhu yaalay dabadeedna halkaas baa laga qaaday waxa soo gaaray dadoo dhan markii uu horeysay inan baa hor aragtay markii dambana 3 baan ugu nimi oo guriga ka soo baxnay guriga dhexdiisa 3 qof baan ugu nimi oo ka soo baxnay markaan ka soo baxnayna maxay haydeen wuxuu inan baa dadkii dibadda ka yimi annagoo kaabada ka soo degin iyo inaan hor qaaday saas bay ahayd arrinku waxyaan gabadha iyadu dariiq iska mareysay oo dadkii ku soo ururay kamid ah shaqo kumay lahayn laakiinse waxay ahayd dadkii meesha yimi goobta yimi markii askartu timi iyo lagu wareejiyay askartu annaka naga qaaday ilmihii annaka naga qaaday dabadna waxay la wareegeen waxay ahaydeen ilmihiina dadna inantaas baa tiri anaa korsanaya magacaygu waa Cabdibaas Faad Cali waxaan ahaa goob jooge falkii xalay toole habeennimadii abaar 9 habeenimo ka dhacay xaafadda laanta hawada ee magaalada Hargeysa falkaas aan goob joogaha ka ahaa ilmaha yar ee la soo dhigay markaan xaafadda ka yimi ayaan ku soo baxay buuq iyadoo la is erinayo waan soo dhaqaaqay xaafadan waan eegay ilmihii yaraa gabadh ayaa gacanta ku dhigtay booliska ayaan ku wargeliyay in ilmo yar xagan yaalo booliska saldhiga quracdheer degmada Maxamuud Haybe ayaa sidii dib u soo gaaray booliska qaaday boolisku waxay si ku meel gaar ah ugu dhiibeen gabadh magaceedu ayaan qutur yahay sidaas ay falku dhacay falalka noocan oo kale ayaa ku soo badan magaalada Hargeysa muddooyinka ugu dambeeyay mana jirto talaabo cad oo wali dawladdu ay qaaday ama xukuumaddu Cabdiraxmaan Ordogan telefishinka nabad Hargeysa